السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. saxaabta qiimaha badan ku soo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa waa dhacdo aniga ahaan marna iga qusul siisay marna aad iga fajacisay. Si lamidana asxaabteedan kamid ah ee barta Instagram igula saaxiibtay ay iyaguna falcelin lamid ay ka bixiyeen markii aan storyga ku shaaciyay in aan soo wado muuqaalka dhacdadan. Waa dhacdo ku saabsan waxyaabo inta badan maqal kaliya inagu ah, sida in qof bani aadam ah uu dhalay wax aan bani aadam ahayn ama xayawaan dhalay wax bani aadam u yar eg. Midana kama dheero sheekooyinka noocaasi oo kala ah, balse waxa iyada mid qaas ah oo aan caadi ahayn ka dhigaya oo marka aad ogaato sirta ay gabadhan adeegsan jirtay si ay xayawaan u dhasho. Qisadan waa qiso waa aad u horeysay dhacday, balse ilaa maanta aan ka bixin buugaagta taariikhaha la yaab kale lagu qoro ee dalka Ingiriiska. Waxbayaan idinkaga hordhicin ee aan gudagalno muuqaalka. waqti aad u dheer ka hor tuulo yar oo ku tiilay dalka Ingiriiska laguna magacaabo Godalming ayaa waxa ka dhacday arrin aad uga fajicsay dadyoogii Ingiriiska misna ay in badan rumaysan waayeen. Arrintan ayaa waxay qabsatay gabar lagu magacaabo Mary Loft oo 24 jir ahayd. Mary waxay isaga shaqaysan jirtay mid ka mid ah beeraha ku yeelay tuuladaasi. Maalin maalmaha ka mid ah gabar lagu magacaabo Mary Gale waa samideeda oo iyadu daris la ahayd Mary Loft ayaa waxay ku soo baxday qaylada Mary Loft oo gurigeeda ka dhex qaylinaysa. Gale waxay durbadiiba ku soo carartay gurigii Mary. markay gurigii soo dhex istaagtayba waxay aragtay Mary oo dhulka taala misna xanuun haya dartii aad u rafrafanaysa, calooshana gacanta ku haysata. Inkastoo aan horay loogu ogeyn wax uur ah, haddana Mary waxa haysay fool. Isla markiiba inta ay garabka ka gashay ayay jiifisay sariir meesha ka agdhoweyd iyadoo bilowday in ay ka umuliso. balse waxa dhacday arrin ay rumaysan weeday Gale oo Mary waxay dhashay ma ahayn bani aadam ee waxay ahaayeen wax leh xubno xayawaan. Waxay ahayd arrin mucjiso ah. Gale inta ay rumaysan weeday waxa indhaheeda ay ku arkayso ay durbadiiba u carartay dhanka iyo dumaashadii Mary oo meel xaafadooda ka agdhow degneyd iyadoo u sheegtay arrinka naxdinta badan ee Mary haysata. Isla markiiba hadalkii wuxuu gaaray dhammaan qoyskii Mary Loft oo iyagu wada imaaday gurigeeda. reerkii waxay u waceen dhakhtar lagu magacaabo John Howard si uu gabadhoodan xaaladeeda ula tacaalo. Asaga markaa wuxuu u lahaa in ka badan 30 sano khibrada xagga dhalmada. John isla markii uu yimidba wuxuu bilaabay in uu Mary ka sii umuliyo. si waxay noqotay dhalmadii ugu fajaca badnaa ee abadkii uu arko xitaa uu maqlo. Kadib markii uu Mary ka dhaliyay wax uu ku sheegay 3 lugood oo bisada iyo 9 bakeyle oo dhintay. waxaad maqashay warun, waa 3 lugood oo bisad ah iyo 9 bakeyle oo dhintay. Dr. John inta uu garan waayay waxa uu ku dhaqaaqo ayuu wuxuu warqad u qoray khubaro caafimaad oo ku sugnaa magaalada London si ay talo uga siiyaan xaaladan dhalmo ee la yaabka badan. Sheekadii mucjisada ahayd ayaa waxay gaartay boqorkii Ingiriiska xilliga ee King George I. asaga laftirkii inta ay maskaxdiisa ka weynaatay oo uu aamin waayay ayuu wuxuu tuuladii Godalming u soo diray dhakhtarkiisa qaaska ahaa ee Nathaniel Andre si uu arrinkan u soo xaqiijiyo in ay run tahay ama in ay iska sheeko tahay. Andre iyo raggii la socday markii ay soo gaareen tuuladii waxayba ugu yimaadeen Mary oo sidii weli u dhalaysa bakeelayaal dhintay. yacni maba ahayn wax hal mar ah oo dhowrkii isbuucba dhowr xabo ayay dhalaysay. markii ay tuulada imaanayeen waxay maraysayba bakeelihii 15aad. bakeelihii 15aad ay markaa dhashay. intii ay halkaa joogeenna dhowr xabo ayay indhahooda hortooda ku dhashay. Mary oo iyadu dhowr jeer wax laga weydiiyey sidee yacni waxaan ku dhaceen, waxay inta badan ku andacoon jirtay in ay tahay naxas, iyadoo xitaa sheegtay bilooyin ka hor iyadoo beer ka dhex shaqaynaysa in uu bakeyle ka nixiyay. markay burso oo soo qabays dhahdayna uu hal mar midaq ka dhahay. intii midkii hore ay raadinaysay haddana mid kale uu meel gees ah uga soo baxay. ugu dambayna asna sidii midkii hore oo kale uu ka cararay. dhakhtaradii waxay bilaabeen in ay arrinkan baaraan, caddeen micno lehna ay u keenaan sida ay macquulgal ku tahay in qof bani aadam ah uu u dhalo xayawaanka bakaylaha. Dr. Andre wuxuu la yimid fikrad ah in ay suurtagal tahay oo Mary oo leh uurka ilmo caadi ah oo bani aadam ah in xaaladii ay la kulantay oo bakaylayaashii dhibayay ay saameyn ku yeelatay qaab samaysanka ilmahaasi, taa oo keentay in ay bakaylo isku bedelaan maadaama ilmo galeenkeeda uu xamili waayeyna ay ku dhex dhinteen, sidaana bakaylayaal dhintay ay u dhashay. ninkan wuxuu daliishanayay fikrad aad u shacab baxsaneed xilliga oo loo yaqiinay maternal impression, taa oo haddaan soo koobin tilmaamaysa in xilliga hooyada ay uurka leedahay waxyaabaha ay maskaxdeeda ka sawirato inay saameyn ku yeelan karaan canuga uurkaasi ku jira. tusaale, hooyo uur leh hadday sawirato canug jiis ah ama leh shakli kale in ay uurka ku sido waxay u badan tahay ayay leeyihiin in ay dhasho canug noocaas oo kale ah. marka Mary waxa laga yaabaa inay maskaxda gashatay bakaylayaashaasi dhibayay canugiina ay sidaa
shaqligaas u qaatay yacni dabcan sida aad qiyaasi kartaba aragti micno leh ma noqon midaan oo waxaan macquul gal ahayn in bakayle uu ku dhex sameysmo gudaha ilmagaleen qof dumara taa waxaa kaga sii daran mid ka mid ah bakaylayaashii ay Marie dhashay laba cad ayuu u kala go'naa wuxuuna u muuqday mid yacni si ku talagal ah loo kala gooyay adigu Dr. Andre iyo John sheekadan way aamineen oo waxay ku qanceen in ay xaqiiq tahay oo gabadhan ilmagaleenkeeda ay ka yimaadeen xayawaanadan marka aragtidii ragga lagu qanci waayay ayaa waxaa haddana loo yeeray dhakhtar kale oo lagu magacaabo inkastoo doktorkan uu isna goobjoog u ahaa dhowr jeer oo ay Marie dhashay bakaylayaal haddana lama mid ahayn dhakhtaradii hore isagoo ugu dambeyn ku tilmaamay in waxan ay been abuur yihiin yacni Marie waa beenteeda ayuu yiri oo suuragal ma ahan in bakaylayaashan ay iyadu dhalayso sidoo kale wuxuu soo jeediyay su'aal ah maxay u dhashaa oo kaliya bakayle dhintay oo ilaa haddeer hal xabo oo nool ay u dhalay laadahay isagoo ugu dambeyn xitaa bakaylayaashaasi qaarkooda u soo dhiibay King George si uu u arko sidoo kalena ku qanciyay boqorkii in gabadhan uu London geeyo misna baaritaan badan lagu sameeyo King George ayaa ku qanacay fikradii isagoo amray in gabadhan la keeno magaalada London sidii ayaana lagu keenay London iyadoo guri qaas ah halka laga dejiyay waxaana meeshii la isugu wacay qaar ka mid ah dhaqaatiirtii iyo umulisooyinkii ugu caansanaa London si ay uga qayb ahaadaan goobjoogna ugu ahaadaan marka ay Marie ay dhalayso bakayle warkii ayaa wuxuu u faafay si aan innaba caadi ahayn sheekadii gabadhan ayaa hadal hayn ka noqotay dhammaan waddanka Ingiriiska ilaa heer ay wargeysyada u tarsamaan daabacaada sheekadeeda iyo waxyaabaha cusub ee ku soo kordha haddii ay bakayle cusub dhashay iyo haddii kaleba adigu sheekadeeda waxay noqotay musalsal ay dadku idil wada sugaan xitaa ay qaarkood lacag ku bixiyaan si ay gabadhan hal mar u arkaan nasiib darro laga soo bilaabo November 3 ilaa December 3 Marie waxay u muuqatay kaliya mid fool haysa balse marka saaladii la saaro wax natiijo ah oo ka soo baxda ma jirin yacni wax bakayle ah oo ay dhashay ma lahan fool cidlaha iska hiisay macna dhakhtaradiina waxay bilaabeen in ay ku kala qaybsamaan aragtiyaha oo qaar ayaaba aaminay fikradii ahayd in ay been tahay waxaan oo Marie ay iyadu iska camiratay maalinkii ay taariikhda ku beegnay 3 December waliba xilli dambe ee galabkii ayaa mid ka mid ah dadkii baarayay arinka Marie wuxuu arkay nin iska xamaalata ahaa oo isagoo dhuumanaya gudaha u galaya gurigii Marie ay joogtay durbadii wuxuu arinkii wargeliyay dhaqaatiirtii kale iyagoo gacanta ku soo dhigay ninkii misna weydiiyay waxa uu halkaasi ka qabanayay adiga wuxuu iska meermeeriyaba ugu dambeyn wuxuu qirtay in Marie dumaashadeeda ay ka dalbatay in uu u keeno bakaylayaal yaryariis ah misna haddeer uu u geenayay bakaylayaashaasi ceebay tacaal arinkii waxa la wargeliyay boqorkii George isagoo maalinkii xigay u yeeray Marie waxaana la bilaabay in la weydiiyo su'aalo aad u badan sida in ay been sheegayso oo kale iyo wax la mid ah adigu laba maalin oo isku xigta wixii su'aalo la weydiiyaba miimka ay cogsatay oo waxay ku dhaaratay in aysan qiyaano wadin oo bakaylayaasha ay run u dhalayso yacni dhakhtaradii markii horeba ka shakisnaa sheekadeeda ayaa boqorkii ka codsaday in uu u ogolaado in Marie ay ku fuliyaan qaliin si ay u xaqiijiyaan in ay leedahay ilmagaleen ka duwan kuwa dumarka kale yacni waxay leeyihiin macquul ma ahan ilmagaleen la mid ah ilmagaleenadii dumarka kale haddii aad leedahay inaad maxaa ku dhahaa bakayli wax la mid ah dhasho qalimada noocan ahna yacni sida ay maanta u fudud yihiin ma ahayn oo dhibaato iyo xanuun aad u daran ayaa laga kulmi jiray xiliga Marie inta ay aad u baqatay misna ay garan weeday qaab ay isaga diido qaliinka ayaa ugu dambeyn waxay qiratay in waxaano idil ay ahaayeen kuwa been ah yacni kuwa been abuur ah misna ay rabtay oo kaliya in ay caan noqoto la hadal haayo xoogaa lacagna ay hesho ugu dambeyn marka la weydiiyay yacni sidee waxaan aad ku sameyn jirtayna waxay daaha ka qaaday in ay bakaylo soo qaban jirtay misna ay gelin jirtay xubinteeda taranka hadhowna ay iska dhigi jirtay sida qof fool hayso oo kale sidiina looga dhalin jiray inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inta aan noolahay weligay iguma soo dhicin fikrada qof ayaa yacni wuxuushnimadaas ku kici kara adigu ugu dambeyn King George oo aad uga carooday khiyaanadii naagtan ayaa wuxuu amray in lagu tuuro xabsiga yacni tan ciqaabtan ugu darneed hal mar ayuu yiri bilooyin marka ay xabsigii ku qaadatay ayaa ugu dambeyn cafis loo fidiyay iyadoo sidii loogu celiyay tuuladeeda ugu dambeynna waxay noolaataaba waxay dhimatay sanadii 1763 bismillaah waxa la yaabay geesinimadeeda ay waxaasi ku sameynayso inkastoo ku dhawaad 300 iyo abaf sano laga joogo dhacdadan haddana ismalihi yacni ilaa haddeerna maanan arag qof waxaanoo kale ku kacaya macquul inay jiraan adigu bani aadankan wax waliba ka filo bal adigu fikirkaaga ku aadan sheekadu waa maxay misleedahay qof sidaanoo kala jira waa laga yaabaa dabcan haddii aad muuqaalkan la dhacday daawo qisadatan oo aan hubo in ay sidoo kale ku cajibgelin doonto waa qiso aan kaga sheekeynay askari nafta u keenay ciidamadii Naaziyiinta ee Hitler misna fuliyay mission aan innaba caadi ahayn isagoo iskuwaad dhan xilfaha u laabay waa inuu muuqaalka kan xiga kaga tagaya sidaa iyo amaana Allah